jiri daaciga waxaa la rabaa qofka ilaahay dadka ugu yeedhaya inuu noqdo tabiib dadka daweeya xanuunka waan la dagaalamaynaa cudurka waan la dagaalamaynaa laakiin qofkan xanuunsanaya ma necbin waan soo dhawaynaynaa waxbaan baraynaa waan tabiibaynaa waxaa jiray madiina almunawara magaaladii madiina ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam imaam faqiiha oo caalima oo la yidhaahdo imaamkii madiina weeyaan magaciisuna maalik ibnu diinaar la yidhaahdo aqalkiisa waxaa u soo dhacay nin tuuga oo madiine oo dhan laga yaqaano waana tuuga oo weyn aqalkii imaamka imaam maalik ibnu diinaar ayuu u soo dhacay imaam maalik salaatuleyl buu iska tukanayo ilaahay buu iska baryayey tuuggii markuu soo dhacay aqalkiibuu baadhbaadhay waxba wuu ka waayey markuu doonayay inuu iska baxo ayuu imaamkii arkay maalik ibnu diinaar baa arkay wuu u yeedhay kaale buu ku yidhi waxaad u timid inaad wax adduuna aad qaadatid bal haddaba wax aakhiro ah ku siiyo wixii adduunka iga weydayay waxa aakhiro ha ku siiyo waxa uu ku yidhi haye wuu ag fadhiistay imaam maalik ibnu diinaar wuxuu bilaabay inuu ninkii u xadiiso uu waaniyo uu caqli celiyo uu uga sheekeeyo aakhiro iyo jannada iyo wanaagga sugaya qofka mu'minka ah wuxuu uga sheegay adduunkan inuuna macno lahayn una qiimo lahayn ninkii tuugga ahaa wuu ooyey